dhinac kale City ciyaarteedii iyadoo saacad ugu dambeeyay Paul Merson uu yiri waan shoogi doonaa hadaan maqlo sanadkan City horyal qaaday ama qaadaysa waa wax yani ama ka guur City in sanadka horyal qaadi kartaa haday dhacdana mucjiso weyn bay tahay yani waa waxaan macquul ahayn buu ku tilmaamay tii galabtu way badisay runtii ciyaarta muhiim bay u ahayd yani City haday horyal ku rabaan in ku guuleystaan waa in ciyaaraha noocan oo kala badiyaan hadana Aston Villa iyo kuwa kala ku jira dhaxdan iyo Liverpool waan arki doonaa City wax weeyaan ayaantan qaabkoodu wuxuu u muuqanayaa runtii inay tartamayaan balse muhiimadu wax weeyaan inay joogtaan ciyaaraha marka joogtayaan guuluhu kulay Manchester City guulshan muhiim bay u ahayd galabta inay badisay runtii marka City way adkaatay City kol waxay rabaan in sidii Liverpool sanadkii hore la soo dhaafiyo kale iyo dadkan isfiirinayna ku dhaxdhuumata bay rabaan horyaalka daf yiraahdaan intaas waa inta marka City iska jira galabta guul muhiim bay gaareen ninka halana waa laga yaaban yahay waba ninka unstoppable hatta sanadkan dhalis hatta ma hayo xitaa waxa uu difaacaya kubadu difaacaya marka City waa iska taagsanay leedahay aniga tartiibkayga yaa iska soo taagsanaya waxa uu imika haysta sikan 23 gool 3 uu caawiyay 13 ciyaar xul iyo koox inaba caadi ma shan daqiiqo maanta laba leey ku dhaliyay markaas uu gaaray goolkiisa 10aad iyo goolkiisa 11 horyaalka 8 ciyaarood 11 gool horyaalka la maraya machine Haaland يا ونيكي ووري التاريخ ذا لا أركيو بريمير ليجا إن ما تخانا سديد عيار وهرية يا أول ربع 8 جول كبدنا وهيستو لا بقول لا تروح لو شن لا تروح لو لا تروح شن